guud ahaan baa khiyaartana dhegaysanaysa waa mar kale barnaamijkeeni gobonimo doon TV qodobada maanta oo idin hayana waxaa kamid ah gantaalo lagu garaacay deegaanka Ceel Cadde qasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay gantaaladaasi shacabka deegaanka oo cabsi weyn soo wajahayso qodobadaasi ayaa idin faahfaahin doona wararka ka imaanaya deegaanka Ceel Cadde gobolka Gado ayaa sheegaya in halkaasi xalay duqeyn culus oo ku garaaceen diyaaradaha dalka Kenya waxaana duqeynta ka dhalatay qasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac dadka deegaanka ayaa ku waramaya in 4 gantaal diyaaradaha dalka Kenya ku dhufteen xaafado ka tirsan deegaanka Ceel Cadde waxaana duqeynta si gaar ah loola beegsaday guriyo ku yaala deegaankaasi inta la xaqiijiyay 2 qof ayaa ku geeriyootay duqeynta xalay lagu garaacay deegaanka Ceel Cadde waxaana ku dhaawacmay tiro kale oo intaasi ka badan duqeynta ayaa sidoo kale sababtay in ay burburaan guriyo ku yaala deegaankaasi Ceel Cadde waxaana deegaankaasi maanta laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo deegaanka Ceel Cadde gobolka Gado ayaa sanado ka hor lagu laayay ciidamo badan oo ka tirsan militariga dalka Kenya kadib markii ay al-shabaab saldhigooda ku qaadeen weerar qaraxyo ku bilowday